Ku soo dhawaada shabakada warbaahinta JMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka JMN waxaad kala socon kartaan barteena Facebooka iyo YouTube-ka. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo shalay ka qarxay hareeraha iyo gudaha magaalada Baydhabo. Madaxweynihii hore ee dalka Zambia oo mar kale loo doortay madaxweynenimada dalkaasi ee Zambia. Xuutiyiinta oo weerareen warshada sifaynta shidaalka ee Sacuudiga. Sidoo kale wararka maanta idiin hayno waxaa ka mid ah Bashar al-Assad walaalkiisi oo dil lagu xukumay. Wararkaasi oo si tafatiran ayaan idinla socodsiin doonaa ilaa dhammaadka warkeenna. La socod habboon ayaan idin leenahay. Ciidamadii weeraray Baydhabo oo ka hadlay waxay ka ogaayeen weerarkii Al-Shabaab ee xerada militariga Soomaaliya. Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo shalay ka qarxay hareeraha iyo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed. Sida ay BBC-da ay sheegeen ilo wareedyo ku sugan gobolka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalamayaalka ka tirsan Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka daacad u ah hogaamiyihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa weerareen xeryo ciidan oo ku yaalan magaalada Baydhabo, balse weeraradaasi lagu jebiyey. Madaxweynihii hore ee dalka Zambia ee xilka ka hayay oo mar kale loo doortay xilka madaxweynenimada. Madaxweynaha Zambia Hakainde Hichilema ayaa mar kale loo doortay xilka madaxweynenimo muddo 5 sano ah kadib markii uu helay 60% codadkii la dhiibtay. Ninka ugu dhow ee la tartamayay Brian Mundubile ayaa helay 38%, hase yeeshee wuxuu ku eedeeyay doorashada in ay ka dhaceen isaga oo aan soo bandhigin caddeymo. Xisbigiisii ayaa sheegay in uu ku sugan yahay meel ammaan ah kadib hanjabaado soo gaadhay, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in uu ka cabsi qabo in la xidho. Guusha Hichilema ayaa timid xilli ay xiisad siyaasadeed iyo xarigiyo loo geystay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka. Xuutiyiinta oo weeraray warshada sifaynta shidaalka ee Sacuudi Carabiya. Xuutiyiintu waxay sheegeen in ay diroon ku weerareen xarun shidaal oo ay leedahay Saudi Aramco. Kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ayaa sheegaya in ay mar kale diyaarad aan duuliye lahayn diroonka ay ku bartilmaameysteen warshada sifaynta shidaalka Sacuudi Carabiya ee Saudi Aramco, taasi oo ku taala magaalada Jizan. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Xuutiyiinta Saba News Agency ee loo yaqaano. Weerarka waxaa loo qaaday argoosi ay ku sheegeen xadgudub lagu sameeyay hawada Yemen. Wakaaladdu waxay soo xigatay ilo military oo sheegay in Xuutiyiintu dhowr diroon ku bartilmaameysteen xarumaha warshada Aramco ee Jizan, iyagoo sheegay in weerarku ahaa jawaab ka dhan ah xadgudubka hawada ee gobolka Sada iyo Haja ee Yemen. Xuutiyiinta oo xulafo la ah Iiraan waxay sidoo kale hore u weerareen maraakiib shidaal oo Sacuudigu leeyahay oo maraya Badda Cas, waxayna dhowr jeer bartilmaameysadeen kaabayaasha shidaalka iyo garoomada diyaaradaha ee Sacuudiga. Waxay sidoo kale marar badan bartilmaameysadeen kaabayaasha shidaalka iyo garoomada diyaaradaha ee Sacuudi Carabiya. Bashar al-Assad walaalkiisi oo dil lagu xukumay. Maxkamadda ku taala Suuriya ayaa dil ku xukuntay
Qaasim al-Asad oo ay ilma adeer yihiin madaxweynihii hore ee xilka lagu tuuray Bashaar al-Asad. Qaasim al-Asad ayaa lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin dil hore loo qorsheeyay oo dhacay xilligii dagaalka sokeeye ee Suuriya. Waxaa la qabtay bishii Juun. Go'aankan ayaa yimid toddobaad kadib markii Bashaar al-Asad iyo walaalkiisa iyaga oo maqan lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyay dambiyo ka dhan ah aadanaha. Bashaar al-Asad iyo qoyskiisa ayaa u qaxay dalkaasi ee Ruushka markii ciidamada ka soo horjeeday dowladda ay galeen caasimadda Dimashq bishii Diseembar 2024, taasi oo afjartay in ka badan 50 sano oo qoyskiisu awoodda dalkaasi hayay.